marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo waxa haystaan waxa ilaahay ku daro laakiin in dawladdiina aad maxaan ku raahdaa wixii ay ka mudan tahay oo canshuura aad siisaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya marka dalkeenu waa dal kheyraad badan waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darri maaha wax badan yaa Soomaaliya yaalla Soomaaliya waa dal qani haddii noqoto oil and gas haddii noqoto mining haddii noqoto waa wax dhulkoos ku jira oo haddii aan aqli la imaanno dawladda dadka Soomaaliya imaanaya oo investment ku sameynayaan waa inay helaan dawlad aamina ogaada dawlad tuugaha cid wax ku darsanaysa ma laha waxyaabaha ugu horeeya oo adduunka ku soo jiidaya investment waxa kamid ah dawladdan corruption kan waxa keenaya qof iimaan la oo aan patient lahayn oo aan suuq karin wadanka horta inuu qani noqdo oo raadinaya kat wax la yiraahdo iyo commission fee qofka markuu arka marka la yiraahdo kat keen wuxuu leeyahay meeshan haddaad billion geliso hadhow maxaa lagu weydiin doonaa war waxaan waa tuugay waxba iska gelin meesha laakiin markuu arko in fakarka uu aaminsan yahay dawladihiisa ku shaqeeyaan oo ka dhaxarko wuxuu leeyahay dalkani waa dal aad aamini karto systemka hadda aan bilawnayna oo dimuqraadiyadda ahna waa haysanaa oo the rule of law oo la isdacwaysan karo adduunka la isku dacwaysan karo marka haddaan la imaano ammaano iyo dimuqraadiyad oo clean ah oo san qofna design gareynay election ugu soo noqon lahaa midda kale aan sheegay waxay tahay anu ma design gareynay si aan ku soo noqon lahaa maxaa yeelay 4 sano noolaan doon kala ma aqaano waxaan soo ogahay maanta inaan shaqeyn karo maanta shaqadan qabto haddii aan ku soo noqon karo waa alxamdulillah haddaan ku soo noqon waayo qof iga fiican la helana waa ka sii fiicanta laakiin qof design gareyn kara election ma jiro waxaan ka shaqeynaynaa dawladdeena inaan maanta shaqada qabanno noo taala birri ma aha birri waa balaan gareynaynaa waa qorsheynaa laakiin shaqada maanta aan qabanaynaa marka shaqadaas waxay noo liid gareynaysaa marka dadku inayna aaminaan caalamkuna ay wax lagu darsadaan saas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay ka dhaxarkayaan inaad tahay aamin dawlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sarreysa yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna hadee waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumo haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay way Soomaaliya waxay leedahay markaan idin sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization bas aan u baahnayn wax maxaa ku yiraahdaa dhulku waa fertile way uma baahna in sun iyo bacrimin uma baahna bacrimin uma baahna marka waxaan ka beernaa oo kaliya wax ka yar 100 hektar 8 milyan diyaar ya noota oo labadooda dhexdooda ah oo diyaar oo hadii mirihii lagu tuuro hore ka soo baxaya waxaan leenahay bad aad u dheer iyo sidii shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ee Malawi uu doqonimo ku dhinto meel kale adduunka Malawi uu doqonimo ku dhinto dadkeenana gaajo u laanaya marka waxaa la rabaa Malawigaas intuusan doqonimo u dhiman in adduunka u suuq geeyay waxaan leenahay xoolo fara badan intaas marka la dhaafo haddaan aqli la imaanno dalkeena macdanta ku jirta wax caadi ah maaha meesha istaraatiijiga adduunkan kaga naalana meel adduunka nala mid ah ma jirto waxaas dhan wax nooga halaabayaan runtii dawladda la rabaa inay tahay dawlad hufan oo wanaagsan oo capacity la timaada iyo shaqo wanaag la timaada oo waxaan cudurkaas uu sheegay aad ducaanay oo qabiilka ah wax jira ma aha ana idin sheegay wax jira ma aha haddaan baadi uga soo tagno magaalada nimid waxaa la rabaa inaan sidii caalamka iyo adduunyada horumartay ay u nool yihiin inaan u noolaano oo aan ku shaqeyno wariyaan noogu wanaagsan yaa wax qaban kara yaa noogu daacadsan yaa ilaahay ka baqaya laakiin haddaan ku qaadano intuu caali cun lahaa
انتو بانيال انتو عالم عنو لها بانيال انتو بانيال عنو لها علي هبسيستو ها انتو بانيال عنو لها علي هبسيستو معناها waxay tahay kugu doqonsan noole oo wax si hadee qof doqon ah oo wax matara ah oo tuuga kuma nooleyn karo maxaa yeelay isaga tiisi gabayba marka Allah waxaan ka ballan qaadayna haduu Ilaahay yiraahdo inaan sidii aad nagu doorateen 40 sano soo socota inaan waxba iska bedel insha Allah waana ay kara waa dadku mid ma aha dad aan fiirin yani ugu dhex jira oo qaar kood dawladnimada si kale u fahamsan ama si kale wax u arka anagu ma diidayno criticism waa okay wax dhibaato ah anagu ma aragno waliba waxaan arkaa inay tahay wax lagu saxayo marka og tahay in wax laga sheego waxa leeyahay waxaas aan wax ka jiraan balbaar